بسم الله الرحمن الرحيم كلا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa Iiraan kadib wadankee la is oran karaa uu ku xiga in la weeraro ma Masar ba ma Pakistan oo ah wadanka kaliya ee nuclearka ku hubaysan ee muslima mise waa Turkiga su'aalahan waxay noqdeen kuwo la isweydiiyay tani intii dagaalka ka socda bariga dhexe oo bilowday waxaana ka sii horeeyay xitaa dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii June ee 12 maalmood dhexmaray Mareykanka iyo Israa'iil oo garabsanaya iyo Iiraan ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett ayaa hadal uu jeediyay toddobaadii ka hor wuxuu sheegay Turkiga inuu Israa'iil ku hayo caqabad isla markaasna geeska uu galiyay waxaana uu sheegay inay tahay muhiim in loo qalab urursado sidii la iskaga difaaci lahaa Turkiga intaas oo kaliya kuma eka qobar Israa'iiliina ayaa si toos ah waxay telefishinada uga yiraahdeen Turkigu waa yoolka labaad ee xiga laakiin qaar kale waxay leeyihiin Pakistan bacdama ay haysato nuclear way noo fududahay haddii Iiraan laga takhaluso inuu halkaas ka galno halka qaar kale ay leeyihiin ma ahanay waa Masar cid xigta ee la beegsan doono arrintan waxa ka hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo waliba sheegaya in ay jiraan ikhtiyaaro kale oo ka duwan Bab al-Mandab iyo Kanaal Suez oo ay tahay markaasi in loo helo dhoofinta shidaalka wuxuu ku doodayaa suurtagalnimada in la sameeyo dhuumo shidaalka ka qaada wadamada khaliijka oo dhex mara Israa'iil isla markaasna laga dhoofiyo badda Mediterranean-ka arrintaasi waxay saameynaysaa Kanaal Suez oo Masar lacag aad u fara badan ay ka hesho haddaba Masar ma yoolka xiga ee Israa'iil ay ku wajahan tahayba waase haddii ay guulaysato oo Iiraan meesha laga saaro inkastoo Iiraan ay la soo baxday quwad weyn oo sidii la filayay iyo saadaashii la qabayba meesha ay ka baxday macluumaad amuurahaasi la xiriira ayaynu barnaamijka kula foguri doonaa aqriyay macluumaad amuurtan uu ka qoray wargeyska lagu magacaabo Ra'yi al-Yawm Maxamed arrintan qoraagu muxuu ku bilaabayaa qoraha Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay kacaanka Iiraan ayaa waxa uu noqday guuldaradii ugu weyneyd ee ku timaada imbriyaaliyadda Mareykanka taariikhdeeda iyo dagaalka gardarrada ah ee dambiyada dagaala ee Mareykanku qaaday ma laga yaabaa marka Masar in ay noqoto bartilmaameedka labaad oo Israa'iil ay tigsanayso Iiraan kadib marka la fiiriyo dhaqaale ahaan in Israa'iil ay isballaarinayso isla markaasna ay rabto inay deegaano badan qabsato oo ah goobaha saliidda lagu dhoofiyo ee gacanka waxay rabtaa sidoo kale inay faa'iido badan ka hesho dhaqaalaha sii wiiqmaya ee caalamka su-aashu la isweydiinaya ee ajandahan la xiriira kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu bayaano ku sheegay bishii March ee lasoo dhaafay in uu ka hadlay in ay jiraan xalal dib loogu furi karo marinka Hormuz halka isla markaasna uu afkaar kale soo bandhigay iyo qorshayaal saliidda iyo gaaska gacanka loo wareejin karo badda Mediterranean-ka oo lagu bedelo wadiiqooyinka Hormuz iyo Bab al-Mandab isla markaasna wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Israa'iil ay noqonayso awood ballaaran oo gobolka bariga dhexe ka jirta awooddaasna caalamka oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa waa sidoo hadalku dhigay waa garta marka tani maxay ka macno tahay marka tani waxa ay macno ka tahay in bartilmaameedku uu ku koobnayn oo kaliya in la xakameeyo gacanka ama kanaalka Suez ee Masar oo ah goob ay marto saliidda qaar hase ahaatee marinada Hormuz oo hadda khatartan dagaalka ay ka socoto ayaa waxaa la rabaa in lagu bedelo tubooyin iyo dhuumo dhulka la dhigo iyo badda gudaheeda oo looga takhaluso Bab al-Mandab iyo Hormuz intaa waxaa dheer in lala yaaban yahay xaqiiqada ah in ay xirmi karaan Hormuz iyo Bab al-Mandab arrinta muhiimka ah waxay tahay marinka Hormuz waxaa mara saliidda gacanka
iiraan ayaa qayb ahaan hadda carqaladaysay khatarna ku ah. hase ahaatee baab mandab ayaa waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay goob kaloo istaraatiijig ah oo badda cas iyo badweynta hindiya isku xirta, inkastoo shidaalka meeshaasi mara uu 10% ilaa 15 yahay ganacsiga caalamiga marka la fiiriyo. khabiiradu waxay sheegayaan iyo lafagurayaasha iyo dadka ku takhasusay arrimahani haddii la carqaladeeyo inay saameyn ku yeelanayso saliidda iyo ganacsiga caalamiga ah iyo kanaalka Suez. waa garta marka ma waxaa jira qorshe Israa'iil ay wadato ay doonayso inay kula wareegto kanaal Suez? arrintaas in laga jawaabo waa degdeg, laakiin xiriirka kanaal Suez uu la leeyahay ganacsiga caalamiga ah ayaa waxaa waajiba in la joojiyo, waxayna ku xiran tahay maraakiibta ka soo gudubta baab mandab iyo carqaladaynta hadda ka socota ayaa waxay horseedaysaa maraakiibtii meeshaan soo marayay inay hoos u dhacaan. dhaqaale xumo weyn ayaa masar soo food saaraysa. intaa waxaa dheer, su-aasha waxaa waajib ah in laga jawaabo ah, ma jiraa qorshe ay Israa'iil leedahay oo ay rabto in ay xakamayso gacanka Suez? markii taa la fiiriyo ma jirto arrin markhaati kac leh oo taa lagu caddaynayo, laakiin qorshaa jira, ama ha duq ha ahaado ama mid casri ha ahaado, oo Israa'iil ay muddo badan ku taamaysa, oo ay ka mid tahay in la dhiso khad tareen iyo tubooyin shidaalka qaada oo laga xiriiriyo dekedda Iliad ama Umar Rashrash oo lagu xiriiriyo badda cas, oo ujeedadu ay tahay in uu la tartamo hoosna loo dhigo ku tiirsanaanta shidaalka caalamka iyo ganacsiga caalamka uu ku tiirsan yahay gacanka Suez ama kanaalka Suez. laakiin Israa'iil kuma fakarayso inay military ahaan ay Masar weerarto. waa gartay waaya qorshahan marka ay wadaan wadamada khaliijka, Israa'iil miyaa hindisaha dejisay mise waa arrin khaliijka ka timid oo ah in dhuumo shidaal intii la soo marsiyay wadamada khaliijka ilaa iyo Jordan, Israa'iil ilaa iyo badda Mediterranean laga dhoofinayo shidaalka? waxaa jira mashaariic kale oo ayadana ay wadamada gacanka wadaan oo la rabo in wadiiqo isku xirta la sameeyo gacanka wadamada ah Saudi Arabia, Jordan iyo Israa'iil iyo badda Mediterranean-ka, oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad juqraafiyeed ahaanna mashaariic waaweyn ah oo aan ahayn howlo military. su-aashu waxay tahay weli furan, khiyaarkaasi ma yahay mid maangal noqon kara? in la xakameeyo gacanka Suez waxay u baahan tahay dagaal in la galo Masar. hase ahaatee dagaal caalami ah ayaa bilaabanaya haddii gacankaasi oo ah meel caalamka o dhan oo isticmaalo haddii la gacmagameeyo ama la isku dayo in la carqaladayo. awoodo waaweyn ayaa laga yaabaa dagaalka inay soo galaan. qaar ka mid a khabiirada ayaa waxay sheegayaan khiyaarkaasi ma aha mid suuragal ah in dagaal lagu galo kanaal Suez. hase ahaatee xaaladaha hadda jira marka la fiiriyo iyo aaraahda Maraykanka ay soo jeedinayaan iyo Israa'iil, xaqiiqada waxay tahay mid aan laga baaqsan karaynin oo ah qorshaha Israa'iil inuu miiska saaran yahay. si kastoo ay tahay colaadda Hormuz iyo Bab Mandeb iyo kanaal Suez, Israa'iil afkaar kale ay haysataa oo ay rabto inay khadadkaas oo dhan oga leexato, oo ay rabto inay dhuuma daadiso oo ay ku xirato baddeeda haddii ay u suura gasho. waa garta waaya dhinaca kale aan ka eegno marka Maxamed, maxay khubaradu arrintan ka leedahay marka laga tago xogtan khubarada ka hadlaysa maxay leeyihiin? waraagan Maraykanka siyaasi horena ahaa David North la yiraahdo ayaa waxa uu ku tilmaamayaa in marinka Hormuz la xiro oo ay marto in ka badan saliidda caalamka marka 5 loo qaybay qayb ahaan, waxaa kacaya ascaarta saliidda oo laga yaabo inay ka badato $110 baramiilkiiba ama fuustadiiba, iyo inay istaagaan maraakiibtii caalamiga ee halkaasi maraysa. 20,000 oo maraakiiba in ka badan ayaa hadda gacan ku xaniban
arrintaana waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay dagaal ay isku difaacaysa Iiraan ee ma aha dagaal gardarro ah. North ayaa waxa uu sheegayaa isagoo aanan ka gaabsanaynin mabda ahaan in maxkamad la abuuro sidii midii Nuremberg ahayd oo ay abuureen Maraykanka iyo Ruushka si loo maxkamadeeyo hogaamiyaashii Naaziyiinta. waxa uu soo xigtay ereyadii mid ka mid ahaa xeer ilaaliyaashii Maraykanka ee maxkamadii dambiyada ee militariga Robin Johnson xaakim la oran jiray, cid allaaliya ciddii xoog isku dayda noocuu raba ha noqdo oo macnaheedu yahay faldambiyeed oo aan ahayn in la isdifaaco, waxa weeye in qaanuunka la horgeeyo. fal kastoo noocaasa waa dembi weeye aan la difaaci karin, wuxuuna muujinayaa in Maraykanka iyo Israa'iil waxa ay samaynayaan uu yahay dembi iyo faldambiyeed ay galaan labadaasi dal. waa gartay dagaalka muxuu ka yiri marka Iiraan lagu qaaday? waxa uu ku nuuxnuuxsaday dagaalka Iiraan wuxuu ku jiraa in xadgudub lagu sameeyey oo qeexitaanka uu ninkaasi xaakimka bixiyey inuu la jaan qaadayo. Iiraan dowladda Maraykanka ma ayna weerarin, khatarna kuma ahayn, hase ahaatee waxa weeye heshiis ayay la gashay arrimaheeda nuclearka. arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo sanado badan ayaa waxaa jiray shaaha ayaa Maraykanka waxay u isticmaalayeen inuu gobolka gacanka oo asaga u ahaa ninkii madaxda oga ahaa. markii la gaaray 1979kii ee uu dhashay gacaanka Iiraan ayaa waxaa lagu tilmaamay in jabkii koowaad ee ugu weynaa ee istiraatiijiga ah ee Maraykanka imperialadiisa ay la kulanto wixii ka dambeeyay dagaalka labaad adduunka. wixii markaas ka dambeeyay Maraykanka marnaba ma aqbalin natiijadii ka dhalatay kacaankii Iiraan. dowladda Iiraan lama aqoonsanayn. waa tahay maxamed, dhinac kale haddaynu ka eegno Israa'iil oo Maraykanka wadata kuma guuleysan dagaalkii Iiraan ay la galeen. 5 toddobaad kadib waxaynu aragnaa in Iiraan weli awood ay la soo baxday oo Maraykanka xitaa xabajoojin hadda uu ka baryayo. intaa marka laga gudbo Israa'iil waxaa dhibaato ka haysataa Xisbullah oo jabhad ah ama urur aan dawli ahayn oo dhibaato culusna u geystay waqooyiga Israa'iil kuma kun qof ay ka qaxeen. Gaza waxaynu ognahay wixii ka dhacay oo 2 maalmood ka hor halkan waxaynu ka sii deynay warbixin taliye ka mid ah taliyaasha ciidanka Israa'iil uu leeyahay askarteena habeenkii waxay ku jiraan feejignaan cabsi ay ka qabaan in Xamaas ay qafaalato. Masar ma u bereeri kartaa inay kanaal Suez isku daydo inay qabsato? su-aashaas waa su-aal fiican oo meelo badan taabanaysa. ururka Xamaas inta ayna qaadin dagaalkii 7 Oktoobar ee duufaanta Al-Aqsa waxay heleen macluumaad sheegaya in Israa'iil ay ka shaqaynayso qorshe ay rabto in ay badda cas kanaal ka soo jeexdo oo ay Gaza agtiisa marsiiso iyo in ay la wareegto gaaska iyo shidaalka ku jira xeebaha Gaza. dagaalkan oo ay qaadeen ururka Xamaas waxa uu ahaa dagaalka hortaga. Israa'iil sirteeda ma qarsan, waxay banaanka la soo istaagtay inay rabto Israa'iil weyn Maraykankana ku raacsan yahay sida safiirkooda uu sheegay. Masar laga bilaabo wabiga Niilka ilaa ay lagu geeyay Saudi Arabia magaalada Madiina inay rabto in ay ka samayso Israa'iisha weyn. Israa'iil oo ahayd gardarro garba og muddo dheerna lagu dulhayay laguna qalabaynayay awood weynna loo dhisayay ayaa waxay u hanqaltaagaysay inay awood weyn noqoto. hase ahaatee qorshaheedii hadda waxaad moodaa inuu khatar ku jiro iyo jiritaankeeda intaba. dagaalkan hadda ay marka labaad ku qaadeen Maraykanka
iyo Israa'iil Iiraan sidii ay rabeen wax uma dhicin. wadamada kale ee gacanka hadda waxay ka careysan yihiin waraysigii uu safiirka Mareykanka ee Israa'iil uu bixiyay oo ah inuu waxba ka qabin haddii Israa'iil ay awood u leedahay inay isballaariso Suuriya, inay ku xadgudubtay, in ay Masar dhowr goor u hanjabtay, in laga diiday in dadkii Gaza loo barakiciyo Sinai. hadda marka cid kasta u jeeda Mareykanka iyo Israa'iil in ay yihiin dameer iyo labadiisa dhagood, cid kala saaraysa ma jirto. waxaana muuqata dagaalkan hadda ay cagaha gashteen istiraatiijiyad ahaan inay xisaabaad badan qaldeen. Iiraan muddo dheer ayay isdiyaarinaysay. Mareykanka wada hadal dhowr goor ayuu dalbay. mas-uul sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ah ayaa warbaahinta Iiraan u sheegay madaxweynaha Mareykanka laftirkiisa inuu dalbaday xabad joojin lagana diiday. dagaalkan waxaa muuqata in Israa'iil ku talagalkeeda ahayd inay awood wadan muujiso, wadamada gacankana ay baksato, iskuna dayaday si qarsoodi ah in ay isku dhufato, sida wararka qaar ay kusoo baxeen Sacuudiga inay meelo ka duqaysay oo la qabtay basaasiin u shaqeynayay Israa'iil, in Turkiga la duqeeyey 3 goor, in Qobrus la duqeeyey oo dowladda Britain ay sheegtay inaan Iiraan shaqo ku lahayn. waxay tahaba siyaasadii Israa'iil ay bariga dhexe ka lahayd afkay ciidda goosatay. dagaalkii hadda ku jirtana khabiirado dhan waxay ku tilmaamayaan inay tahay dagaal ayna ka soo kaban karaynin. Mareykanka awoodii weyneyd iyo kartidii uu sheeganayay iyo dagaalka inuu muddo yar oo kooban Israa'iil ku burburin doono hadda waxay uga soo ururtay siduu u dhigay mid ka mid ah mas-uuliyiinta Iiraan handadaad wixii uu meedaanka ku waayay Mareykanku. waxaana cad 24 saac soo socota inuu dagaalka sii kullaan doono sida khabiirada hor ku dhigayaan. waa gartay waaya dhinaca kale aynu ka eegno ma la oran karaa dagaalka dhanba ujeedadiisu waxay ahayd qorshahan hadda Netanyahu uu leeyahay dhuumo shidaal oo ka yimaada wadamada khaliijka ayaan soo marin doonaa Sacuudiga, Israa'iil ilaa iyo Jordan ilaa iyo badda Mediterranean-ka. annagoo ku darayna in Iiraan inta ay duqayso gebi ahaan burburiso ceelasha shidaalka iyo goobaha shidaalka laga soo saaro, markaas arrintu ay noqotaa arrin miiska u saaran Netanyahu sida qariirdan ka muuqata. Maxamed, arrintan Mareykanka iyo Israa'iil wixii u qorsoon cid ogaan karta ma jirto, laakiin Iiraan in la weeraro khalad weyn ayay noqotay. arrinta kale oo soo baxda ayaa waxay tahay in Israa'iil siyaasadeedii ay ka lahayd gobolka bariga dhexe inay miiska soo saarto oo cidna ka gabanayn, oo ah inay gobolka oo dhan bariga dhexe ayada ku amrku taageerayso, awood kale inay jiri karin. dhowr goor oo horena idaacadeena waa kasii daynay in ay rabto inay wadamada u qaabayso kooxo yar yar oo ayada ay maarayso. waxay tahaba Israa'iil hadda waxay ku jirtaa xaalad aad iyo aad u adag oo sida ay uga soo kabatay aan adkaanin. Mareykankan waxaa muuqata carabtii uu difaaci lahaa iska daayay asaga wax difaac inuu baahan yahay. Israa'iilna waxaa muuqata dagaalkan ay gashay sida ay uga soo samata bixi lahayd in adkaanayso. wararka hadda la isla dhex maraya ayaa waxay tahay nuclear ma laga yaabaa in Mareykanka iyo Israa'iil midkood isticmaalo. ciddii isticmaashaba khabiirada qaar waxay leeyihiin Iiraan ma gaban doonto oo dagaalkan xataa haddii nuclear isticmaalo waxa ay noqonaysaa in khasaaro weyn uu yimaado, dagaalkan uu sii balaarto u noqdo dagaalka saddexaad ee caalamka. waagaag maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan uga xirnayn hadda kusoo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa